بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن داوديال كسو دواada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligan oo kale aad kala socotaan stuudiyaha magaalada Muqdisho ee telefishinka Universal caaw haduu eebeedmo qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya kulankii maanta ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka waxa warbixin looga dhageystay guddi loo xil saaray arinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sargaal ka tirsan jabhadda OLNF isla markaana lagu wareejiyay dowladda Ethiopia xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa arintaas ku kala aragti duwanaa kadib markii warbixintaas maanta guddigii loo xil saaray ay soo jeediyeen wali waxa muuqata in qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay wali ku kala aragti duwan yihiin waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa warbixintii guddiga ay soo diyaariyeen maxaa ka muuqda oo ilaa hadda la dhaliili karaa maxaa ka muuqda oo guddigu ay qabteen oo shaqo ah sidoo kale waxaan eegi doonaa sharciyan maadaama baarlamaanku ay isku raaceen sharci ahaan in Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aanan hanaan sharciyeysan loogu wareejinin ama sharci darro ay ahayd ku wareejisiisa dowladda Ethiopia arrimahaasi ayaan inta badan barnaamijka ku soo qaadan doonaa oo ku eegi doonaa waxa stuudiyaha nagula sugan oo nagala qayb galaya barnaamijka xildhibaanada kale ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeyso oo aan arrimahaasi wax badan ka weydiin doono qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta u yeeray su'aalana weydiiyay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxyaabaha wax laga weydiiyay wasiirku ka hadlo waxa ka mid ahayd arinta la xiriirta qorshaha qaranka iyo waliba arrimo kale barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijka magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya waxaa shir wada hadal ah oo ay garwadeen ka tahay urur goboleedka IGAD uu uga furmay maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna maxaa ka soo bixi kara shirkaas maxayse tahay dhinacyadaasi inay si qoto dheer hoose uga wada hadlaan shirka iyo waxyaabaha looga hadli doono ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan wax ka weydiin doonaa bal wax ka soo bixi kara kulankaasi dhinacyadaasi ay qaadanayaan xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo horey u soo noqday madaxweynaha maamulka Galmudug qodobadaas ayaad barnaamijka ku daawan doontaan anigu Cabdinaasir Maxamed ayaa soo jeedinaya mar kale ku soo dhawaada barnaamijka ayaan si toos ah u gudagali doonaa waxaynu inta badan sida hordhac idinkugu sheegay caawa barnaamijkeenu ku eegi doonaa kulankii maanta ee xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeesheen golaha shacabka ee magaalada Muqdisho waxaa warbixin looga dhageystay guddiga loo xil saaray arinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sargaal ka tirsanaa jabhadda OLNF isla markaana dowladda Ethiopia lagu wareejiyay haddaba sidaan hore idinkugu sheegay waxaa stuudiyaha nagula sugan xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeyso oo labadaba aynu arrimaha wax badan ka weydiin doonaa laakiin waxaan rabaa si daawadayaasheena la socdaan bal marka hore inaan usoo gudbinno muhiimadda warbixinta guddiga ay soo jeediyeen uu akhrin doono gudoomiyaha guddiga arrintaasi loo xil saaray abraaca loo dhibay Cabdikariim muwaafaqsan yahay shuruucda dalka kadib markaan aragnay dhammaan dastuuradii ay Soomaaliya soo yeelatay tan iyo xorriyaddii 1960 iyo shuruucda dalka ee ku aadan arrinta isu gudbinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha ahdiga waxaa u soo baxday in gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax aan loo marin hab sharci ah lagana talagelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka kaliya laguna saleeyay go'aan aan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyay madaxda qaranka ururka ONLF ma yahay urur argagixiso lambar 1 guddiga baaris kadib waxaa u soo baxday in caalamku uusan u aqoonsanayn ONLF aysan ahayn urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka 2 siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya kama mid aha in ay aqoonsato ama gabaasiiso jamhado ama ururo hubeysan oo duulaan ku ah nabadgelyada iyo jiritaanka dalka iyo wadamada dariska ah iyo guud ahaan dunida inteeda kale aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiyaha guddigii loo xil saaray arinta la xiriirta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo sargaal ka tirsanaa jabhadda OLNF isla markaana dowladda Ethiopia lagu wareejiyay
haddaba mudanayaashii kulanka ka hadlay warbixintaasi markii guddiga ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawa oo hadda stuudiya nagula sugan. xildhibaan waad daawatay dabcan, horeyna waad ula socotay guddiga warbixintoodii. maxaa adiga kaaga muuqda guddiga arrintan warbixintaha uu soo diyaariyey haddii aad dhaliilsan tahay? بسم الله الرحمن الرحيم. aad baa umahadsantihiin. guddiga loo saaray arinta qalbi dhagax runtii shaqo aad iyo aad muhiim ay qabteen. shaqo runtii nuxurkeedu uu sharaf u yahay baarlamaanka Soomaaliyeed ay qabteen. waana wax lagu amaani karo guddiga shaqada ay soo qabteen. natiijadiisana aad iyo aad bay muhiim u ahayd. guddigu warbixintu waa dheereed dabcan, laakiin waxaa ugu muhiimsanaa saddexda arrin ee soo socota ayay soo saareen. kow, cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax in wax sharciya oo lagu wareejiyo aysan jirin, oo wareejintiisu ay ahayd sharci darro, khalad. dee dabcan cidda khaladkaas gashay mas-uuliyaddeedana waa su-aal kaloo taagan. kow. labo, ururka ONLF inuusan ahayn dadka Soomaaliyeed iyo dowladdiisuna aysan u aqoonsanayn urur argagixiso sida golaha wasiiradu uu hore ugu sheegay. saddex, wax allaale wixii heshiisyaha oo dowladdu ay cuskatay inay ahaayeen wax kama jiraana oo aan u dhigmin una qalmin in lagu gudbiyo muwaadin Soomaaliyeed. guddigu shaqadiisii waa gutay, shaqo aad iyo aad baa u qabtay. dabcan waxaan ka war haysaan maadaama guddigu uu intaas sheegay, waxa soo hartay waxay ahayd tala bixin. guddiga dabcan cidda mas-uuliyadda iskale oo ah madaxda dowladda in uu yiraahdo madaxda dowladda ayaa mas-uuliyadda qaadaysa waa ka yara gambaday sababo la xiriira siyaasadaha dalka ka jira oo aan fahmi karno, ama culaysyo ugu yimaaday madaxda ha ahaadaan ama taageerayaalba oo dadku ay kala taageersan yihiin dadka ha ahaadaan. laakiin waxaa muhiima ararta markii la jeediyey oo ahayd qalbi dhagax in la dhiibay qalad ahayd, oo nalfanaysa argagixis ahayn, wax sharci oo la adeegsaday inaysan jirin. natiijada soo baxda waxaa laga rabaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee guud yaa hadda mas-uuliyaddeeda iska leh, oo ah yaa wixii dhacay ka mas-uula. dabcan ma aysan sheegin qaybtaas, waxay yidhaahdeen oo si caato ah guddigu u sheegay in hay-adda nabad sugidda ay tahay. laakiin waxaan ognahay baarlamaanka Soomaaliyeed waddankan wuxuu u doortay madaxweyne loo dhaariyey. annagu mas-uuliyad inuu qof Soomaaliyeed siyaadada iyo dastuurka inuu ilaaliyo qofka mas-uuliyaddiisa ay tahay waa madaxweynaha dalka. ma aha hay-ad nabad sugid, ma aha mid booliis, ma aha xafiisyo hoose. warka meesha ugu muhiimsan marka oo hadda la rabo in baarlamaanku uu ka qaado waxay tahay qalbi dhagax in la dhiibo qalad bay ahayd. maxaa xiga marka? waxa aan maanta ka hadlay marka waxay ahayd maxaa xiga? waxa xiga waxaa la yidhi in hadda kadib laga fiirsado. waa fiican tahay dabcan hadda kadib in laga fiirsado, laakiin nin baa muwaadin Soomaaliyeed baa dhib ku dhacay, waa la dhiibay, gardarra lagu dhiibay, waa in la saxo. waa mahadsanta oo kusoo laaban doonaa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso. warbixintii guddiga maanta maxaa kaaga baxay? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وأنا إذن مهد علنا يا عسومات أدوع عسومتين محوا استودي هنا ويصير أدواي نوا مهد علنا يا سجن سيد في عنا وواحد أرنتاس وحان رواينا مهد علم بالله رسول جدي وجدي وربحنت صاري جدي ويصير شيء ويصير أدواي شيء شغفي عنه وساقبتي runtii ummadda Soomaaliyeed hay'adaheeda muxuu hadda shaqeeya ee baarlamaankaas ugu horeeyo hay'ada ay ku faani karto oo qaldaadkooda saxan karo oo muxuu ahay soo bandhigi kara ka madax bannaan muxuu ahay afkaaraha muxuu ahay kala duwan inay leeyihiin ayaa maanta meeshaas ka cadaatay. waana ku ammaanayaa baarlamaanka Soomaaliyeed sida ay arrintaas u wajaheen. intaa kadib guddiga warbixinadiisii waan dhageysanay. warbixinadu qaraar bay isu bedelayeen. qaraarkaasna waxaa weeye waxaa la tixraacayaa muxuu ahay tala bixintii guddiga ee ahaa in shuruucda muhiimka ah ee aan hadda noo samaysnayn in la sameeyo oo waxyaabaha qaldaadka ah lagu dabiri doono. waxaad la socotiin sharci sidiisaba
kaamil ma noqdo sharci waa lagu kor shaqeeyaa maalin kasta qaldaadka dhaca ayaa looga faa'iidaystaa oo la dhahaa si on qaladkan biri usoo noqon noocaanoo u baahnaya intaa laga leexiyo marka in sharciyadaas dalka u yaal ee giddigooda wada qabyada in muxuu ahaay lagu kor shaqeeyo qalad haddii dhacana lagu saxo arrintaas guddigu way soo jeediyeen in muxuu ahaay baarlamaanka soomaaliya uu iska muxuu ahaay tixgeliyo waa dabcan laga maarmaanay noqon doontaa waxaa kaloo muhiimadeeda leh hay-adda nabad sugidda absolutely waxay ahayd in haddii ay soo qabteen cabdikariin maxkamad la geeyo anigu waa ku waafaqsanaya ka xildhibaan jeso ahaan in maxkamad la geeyo arrintaas la dhiraandhiriyo waxa lagu soo qabto lagu eedeeyo dabcan cabdikariin waa nin soomaali ah laakiin danta iyo shaqada uu hayay ee sbc ku ahaa ma ahan wax qaranka soomaaliyeed dan waa intaadan ka bixin xildhibaan daahir ma waxaad aaminsan tahay in sirdoonkii soomaaliya hogaankii hore sirdoonka soomaaliya uu ku ekaa arrintan oo aysan madaxda kale ee dowladda waxba kala socon dabcan madaxda kale waxaa weeye arrimaha amniga markii amni laga hadlayo inta ugu badan ma aha wax keliya ee ku eg madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ku eg maaha waxay gelaysaa saraakiilay noqonayo unugyay sii noqonaysaa marka unugyadaas qalad way la imaan karaan qaladka ay la imaadaan laakiin waxaa la rabaa markii la ogaado in la saxo marka hadda sixitaankii ayaa lagu jiraa dabcan xildhibaan odawaa ma waxaad aaminsan tahay in hogaankii hore ee sirdoonka keliya uusan ku koobnayn arrintan oo madaxda sare ee dowladda soomaaliya ay wax ka ogyihiin oo dowladdu wada og tahay xildhibaan daahir amiin jeso saaxiibkay aad iyo aad u mahadsan yahay dabcan horta waxba iskuma khilaafsan aniga amiin jeso ilan riboorku waa wada codayna aniga jeso saddexda qodob oon sheegnaana asaas u ahaa waxaan isku haysanaa waxay tahay sharaxadda dabcan waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego hadaatan waa idin sheegay horta number one annaga hay-adda nabad sugidda looma dooranin ilaalinta dastuurka dalka arrimo amniyay haysaa kow waa qodobka labaad oo runtii dee waxaa la rabaa guddi saas u dadaalo oo qurux badan shaqadiisa in lasii qurxiyo wey waxaa intaan u sheegayna markii qalbi dhagax lasoo qabtay kadib tallaabooyinka dhacay qof bani aadama lagama dhaadhicin karo madaxda sare war kama haynin kow horta waxaa dhacay in la yiri dowladdu horta markii koowaad qalbi dhagax waa lasoo afduubay wax dukumentiya oo lagu soo xiray ma jirin ilaan wixii ka baxsan in maxkamado amar qorto qofkii lasoo qabsadaa waa afduub horta markii koowaad waa lasoo afduubay markii lasoo afduubay oo xamar la keenay dowladda waa loo tegey xildhibaanaa u tegey waxaa la yidhi ninkaasi yaan la dhiibin waa la ogaa ninkuna oo nala faha dowladdu waxay tiri ma dhiibayno asagaan soo badbaadinay dowladdii waa dhiibtay ninka markay dhiibtay waa lagu laabtay waxay yidhaahdeen wada hadal buu etoobiya kula jiri dowladda etoobiya hadashay waxay dhaheen nin argagixisaa howey oo nlfa naloo soo dhiibay dowladda soomaaliya noo soo dhiiba maasanta dowladdii soomaaliyeed markaasaa maradu ka dhacday markay maradu ka dhacday waxaa la abaabulay shir golo wasiir cigi waa ka baryaan maqli jira marka shirki golaha wasiirada waxaa la qabtay 10 beri kadib markii qalbi dhagax la dhiibay waxaa la yidhi kow qalbi dhagax wuxuu ahaa nin argagixisa oo ONLF iyo shabaaba ONLFna urur argagixisay ahayd kow labo shuruuc yaan u cogsanay oo sharcigii hebel oo lagu soo saxiixay jigjigay sharcigii hebel oo xagga lagu soo saxiixay saddex markii intaas ay dhacday marka qofka igu qancin kara hay-adda nabad sugiddaa ogeed oo qalbi dhagax soo qabatay oo dhiibtay ayadoo golaha wasiirada la fariisiyey yaa fariisiyey golaha wasiirada marka hay-adda nabad sugiddaa fariisisay maya ma fariisan ra-iisul wasaaraha fariisiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxda ugu sarreysay dalkan mas-uuliyad ayay ka saarantay waxaan rabaa marka inaan halkan ka sheego dad aad u badanoo waxaan arkay u jadbaysanoo leh qarankaa la duminayaa qalbi dhagax hal qof buu ahaa dadkaa ka muhiimsan waxaan rabaa inaan idiin sheego raalli iga ahaw arrinta ku saabsan siyaadada dalka ma qaybsanto hal muwaadin iyo 1 milyan oo muwaadin waa isku xuquuq hal tallaabo dhula iyo 50 tallaabo ama 50 kilomitir oo dhula ama Soomaaliya waa isku ayadana waa isku mid waxaa la rabaa madaxda dalka sida Amiin Jeeso uu sheegay haddii khalad ka dhacay ayadoo la khalad naga dhacay waa ka cudur daaranaynaa dadka Soomaaliyeed mar dambe ma sameynayna maarag madaxweynuhuna ma dhihin ra-iisul wasaaruhuna ma dhihin waxaan rabaa inaan raalli ahaatid riboorka maanta soo baxay ilaa hadda dowladdu statement kama soo saarin xukuumaddu ma dhihin waa aqbalnay warkii golaha baarlamaanku soo saaray khaladaa dhacay
waa saxaynaa ma dhihin Waay. madaxweynuhu kama hadal waxaan aad iyo aad ula yaabanahay dabcan saaxiibka xildhibaan jason anaa ka haysta taasi madaxweynuhu iyo madaxda sare iyo ra-iisul wasaaruhu ma ogeyn war qarya ma aha maantaan Waaya. sheegay hadday ogaayeen waa khalad weyn haddaysan ogeyn inta- waa khalad aad uga daran waaya xildhibaan adaa ku wato xildhibaan odowaa ma wuxuu ku koobnaa go-aanka dhiibista cabdikariin qalbi dhagax hogaankii hore ee sirdoonka waxaan kala jeednaa talisan bololshe mise intaad og tahay wuu ku mideysanaa guud ahaan hogaanka oo hadda taliyo ku-xigeenku uu ku simakaya waaba kuu sheegay waxaan u malaynaya inaan kuu sheego waxaan ku yidhi dee golihii wasiiradaaba inta la shiriyay wuxuu yidhi qalbi dhagax hala dhiibo oo nalefna waa argagixiso golaha wasiirada masambolosha u taliya waa maya waxaa la rabaa marka taliyuhu qaybtuu ku lahaa waa sheegay waxaan rabaa inaan halkaas ku daro guddiga halka meel cilada uu ka lahaa riboorku wuxuu ahaa guddiga ra-iisul wasaaraha iyo prime ministerka sooma aysan waraysan iyo madaxweynahan ka wadaa kuma qora riboorka dadka liiska lifaaqa waxaa ku qoran dadkii lasoo waraystay wasiirka cadaaladdaa la waraystay wasiirka amnigaa la waraystay taliyaha nabad sugiddaa la waraystay taliyaha immigrationkaa la waraystay hay-adda oo aeroboorradaa la waraystay waxaa sabab cajiiba ah guddigu xaguu ku ogaaday in hogaanka sare la marin habaabiyey haddii uusan madaxweynihiina maraysan prime ministerkiina waraysan waaya laakiin haddii intaa ay xog oo heleen oo intaa dhinac ay waraysteen way ka heli karaan sooma way ka dhex ogaan karaan inaanan madaxda sare ee dalkaysan waxba kala soconin mama ayagu maba dhihin madaxda sare dalka kale ma soconin riboorka saas kumaba qoran riboorka waxaa ku qoran madaxda waa la khalday marka haddii madax la khaldi kara hadday dalkan mas-uul kama noqon karto haddii ay ogeedna dalkan mas-uul kama noqon karto labada xaalaba madaxdu meelna ku fakan mayso xildhibaan daare min jesow maxay kula tahay hadda guddigii warbixintii waa laga dhageystay way soo saareen xildhibaanada baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kale weli aragti ahaan arrintan diidan guddigii warbixintoodana ku qancay maxaa hadda tilaabo la gudbo waxaan rabaa aniga soo noqonaya su-aashaada marka ugu horeyso dalkeenna arrimaha amniga maanta ka jira waad garan karaysaan meesha ay marayso hal ilmiriqsi ayay waxay naga dhimatay 400 tiro gaaraysa oo dad ah 400 ee dhimatay waxay u dhinteen cadow aan leenahay dalka Ethiopia ee hadda ninkan loo dhiibina cadow leeyahay iskaashina waa naga dhaxeeya iskaashi oo amnigaas iyagana ay ku badbaadayeen anagana aan ku badbaadayno waa naga dhaxeeya olef ma aha kuwa beer u soo falaya qaranka Soomaaliyeed u maqan ma aha waayo waxay raadinayeen waa shantii Soomaaliya shanta Soomaaliyana waxaa ka mid ah Djibouti oo maanta ciidankeeda noo soo gurmudo halkan ay joogaan waxaa ka mid ah Ethiopia oo ciidamadeedii maanta ay wadankeena ku jiraan marka waxaa la rabaa markii aan ka hadlayna arrimaha amniga inaan la siyaasadeyno si waaqici ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku qancayeen inaan uga hadalna la rabaa arrinta ah guddigii warbixinta uu qoray guddiga warbixintiisu waxaan isla wada qirnay aniga iyo wasiirkayga saaxiibkay odowa in guddiga shaqo badan ay soo qabteen shaqadii ay soo qabteen waa ku ammaan yihiin annagana waa akiidnay wixii warbixin ah oo ay soo qoreen ayaan wada qaadanay cod baarlamaani ayaa baarlamaanka sida la socotiin markii arrin lagu kala fikir duwan yahay waa laga doodaa markii laga doodo kadib ayaa waxaa isugu imaanaya oo unit lagu noqonaya codka waxaa laga yaabaa aniga ina meel kale u coday odawayna meel kale aan u coday laakiin meeshii cod badneed taas ayaa lagu midaysan yahay waxa hadda kaliya ee baarlamaanka Soomaaliyeed isku midaysan yahay waxaa weeye inuu qalad dhacay qaladkan in la saxo nuuca loo saxayo xataa ay sheegeen dhinaca shuruucda in laga saxo marka aad baad u mahadsantihiin laakiin waxaan rabaa arrimaha amniga markii laga hadlayo bil xaqiiqa dad baa na maqlaay dad baa muxuu ahaay ku samayn doono muxuu ahaay hadalladeena raseej inay ku sameeyaan laga yaabaa yaan la siyaasadayn arrimaha amniga yaan la siyaasadayn ma gasho siyaasad arrimaha amniga waaya xildhibaan odowaa haddii cabdikariin qalbi dhagax uu ka tirsanaa jabhad hubaysan oo dowlad gobolka ku taalo uu dagaal kula jiray waxaad diidan tahay in dowladdii loo dhiibo oo la maxkamadeeyo haddii uu dembi lahaana caddaato hadduusan lahayna caddaato aad iyo aad mahadsantiin laakiin su-aashaas meesha maba ku jirto
jabhadaasu jabhada argixisa inaysan ahayn baarlamaanka maanta ansixiyey saaxiibka amiin jesona waxaan rabaa asaga ruuxiisu wixii uu maanta ila soo ansixiyey inuusan dhinaca kale uga imaan uusan dhihin amniga yaa la siyaasadaynayn baarlamaanka maanta wuxuu ansixiyey oo NLF inaysan urur argaxiso oo NLF urur argaxiso Ethiopia bisa u taqaan oo NLF waa urur xarq u dirira annaga doorkeena Soomaaliyeed waxaan ugu aadan waxaan dhihi karnaa annaga xarumaha aanan siinin waa run waxaan dhihi karnaa aan heshiisinayn ayaga Ethiopia waxaan dhihi karnaa dadkan waxa ka maqan Ethiopia ha kala hadasho adduunka waa laysu waa dadkaaga dadkan Soomaali weeye waxbaa naga dhaxeeya xidid iyo ahal anahay waa inaan u raadinaa xal laakiin de marnaba kuma jirin waana idin sheegay reportkeena ku qoran tahay oo NLF urur argixisa ma ahayn marka aniga su'aashaas inaan ka jawaabo kuma qasbin laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego dawladnimada Soomaaliyeed adduunka jabhadaha noocan waa ka jiraan Kashmir meel ilaa ka jiraan oo Pakistan ay degan yihiin ayadoo waxay la mid tahay Pakistan laga qabtay nin Kashmir oo Hindiya loo dhiibay ma dhacayso waxay la mid tahay in qof Turkiya inta la qabtay Greek loo dhiibay ma dhacayso annaga waxay nala gudboon oo dalka aan dariskana nagala gudboon waa inaan qabanaa laakiin muwaadin Soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa saaxiibkay Daahir Amiin Jesow Cabdikariin qalbi dhagax dhiibistiisa ee amniga maxaa laga kala faa'iiday 14 October Cabdikariin waa maqnaa markaas Ethiopia jir marka 14 October ay dhacayso wax cilaaqo ah oo la lahayna ma jirin arrintaas amniga ha laga shaqeeyo dawladdu amniga ka shaqeyso shaqo fiican ha ka qabato waa mas'uuliyadeeda laakiin dawladda aniga waxaan rabaa oo de mas'uuliyadda ay sheegaysaa dadkii dalka iyo dadka loo doorto way haday khaldantay yaa loo cudur daarine ayada khaladkeeda horta ka cudur daarato laakiin waxaan arkayaa saaxiibka Amiin Jesow iyo taageerayaal badan inay leeyihiin war dawladda ha la asturo dawladda waa la asturayaa laakiin ayadu hays asturto horta ha yimaadaan forthcoming ha noqdaan banaanka ay soo istaagaan ha yiraahdaan wixii dhacay oo qalbi dhagax dhiibistiisa ah nala masaxnayn raalli ka aadan dalka Soomaaliyeed markaas waa case kala ka dhalan kara waaya Cilo Cabdiraxmaan adigoo ku wata waa ku siin doonaa xilwan daar ma jira sharci baarlamaanku uu ansixiyay ama horyaale xitaa oo ka hadlaya heshiiska maxaabiista tusaale in Soomaaliya iyo Ethiopia maxaabiista dhaafsadaan ma hadde xogaa dood waxa la rabaa reportkan ku saabsan tahay reportkan gadaal looma akhriyo qofka markii la dhiibo qalbi dhagax waa la dhiibay sharci gadaal laga ma sameeyo qalbi dhagax in la dhiibo inay sharci darro eeda maanta baarlamaanka ka soo baxday laakiin baarlamaanku recommendationska uu bixiyay talooyinka uu bixiyay waxa kamid aha sharci ha loo sameeyo isweydaarsiga maxaabiista inta ka horeysana qofna lama dhiibi karaa lagu soo qorbaanto laakiin anigu waxaan hadii laakiin uu sharciga jiray in la isdhaafsiisado tan ma jirin wax sharci oo jiray oo isdhaafsi maxaabiista oo Soomaaliya ay xubin kama tahay kuma ma jirtaa reportka ku qoran ama IGAD ha ahaado ama African Union ha ahaado wax sharci ma jirin meesha sharci jiri lahaa inta isla fadhin lahayn waaya xilwan Daahir Amiin Jesow hay bismillah markuu horeyso waa ku faraxsanahay hadii wasiirkeygii hore asugu tilmaamo taageerada ee taageerayaasha dawladda isugu tilmaamo waayo dawladda anaga asaga ka mid ah aad baan ugu faanayaa in aan taageero system aan ka mid ahay runtii waxaan rabaa arrimaha amniga ayaan la siyaasadayn markaan leenahay geeska African ku naal inta Kenya naga xad naga leh Ethiopia xad naga leh Djibouti xad naga leh dalal badan xeebaha naga leh xad waxa muhiimadeeda leh oo aan xasuus u leeyahay 99 ayaa nin leera Abdullah Oylan oo Turki Kurdistan aha ayaa waxa uu ku noolaan jiray meesha la yiraahdo Suuriya dawladda Turkiga waxay tiri yaa cid allaaliyo cidii Ingiriisiisa Abdullah Oylan waan soo qabanaynaa waan ku duuleynaa Suuriya ku noolay markaas Suuriya ninka waa iska saartay naga baxayda Abdullah Oylan waa ogtiin Kenya lagu qabtay Kenya wadan xad aan la lahayn dal walba interestkiisa ayuu tarsanaya ana waa sheegay walaalkeen ninka la yiraahdo Cabdikariin Soomaaliya beer uma soo falaynin tacbana uguma maqneen xoolna uma soo dhaqaaleynaynin wuxuu la dagaalamay Ethiopia ururkaas waxay u taqaanaa argagixiso annaga shabaabaan argagixiso u naqaan haddii annaga aan dhahno Ethiopia cida ay argagixiso u taqaano oo iyada dagaal iyo dhimasho ku dhax wado ayaan magangelin siinayna macnaheedu waxay noqonaysaa iyadana Ethiopia inay tiraahdo shabaabaan annagana magangelin siinayna argagixiso uma naqaan marka waxaan leeyahay
arrimaha amniga Waay. geeska aan ku naalno iyo dowladaha aan la noolnahay inaan kala shaqayno Okay. ilaan qaran jiraan nahay Waay. future-ka muxuu ahay dadka iyo dalka aan matalna ay saameyn ku yeelanaysaa haddii aan siyaasaddeena Waaya, ay noqoto mid Xildhibaan qar Jesow. mid qar iska tuurnimo hadday noqoto Waa- xaqiiqatan waaya Waa xildhibaan inaan jeso ku waxaan rabaa argagaxaa inaan ku weydiiyo baarlamaanku ONF maanta wuxuu sheegay inaan dowladda soomaaliya argagixiso u aqoonsaneen cabdikariin qalbi dhagaxna waa muwaadin soomaali ah miyaysan habbooneyn isweydiin karaan dadka qaar in soomaaliya gudaheeda haddii uu dembi lahaa xitaa lagu maxkamaday muwaadinka soomaaliga muwaadinka soomaaliga fiiri shuruucda maanta ay guddiga soo xigteen ayaa xakameynaysa maayan ninka la yidhaha cabdikariin aniga waxaan dhihi lahay muwaadin soomaaliyeed maayan markee muwaadin soomaaliyeed waddan kale ma ka dagaalamo marka riboorka waa diidantaa jeso waddan kale kama dagaalamo waxaa xaqiiq ah raboodkan rabood aan wax ku xalinayni oo muxuu ahay aan shuruucdii dalka iyo muxuu ahay iyo waxyaabaha naga dabacsan aan ku xalinayni waaye mooyaane xaqiiqatan qaldaadka xataa inta badan la saarayo dowladnimada soomaaliya la saarayo sax kuma Waay. waxaase hubaal ah wax kasta oo baarlamaanka go-aan ahou gaaro inay sharci noqonayo waay gabagabadii ayaan soo gaarnay anigoo aad idinkugu mahad celinaya doodii iyo warbixintii kadib soomaaliya dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dowladnimo shaqaysa waxay u baahan yihiin inuu dalka hore usii socdo waxaa tihiin mudanayaal baarlamaan oo dadka soomaaliyeed ku matala golaha shacabka oo siyaasad ahaan ay uga fadhiyaan in dalkan meel wanaagsan ay gaarsiiyaan muxuu xalku idinkula jiraa ugu dambeyn aan ku horumaro odawaa ma aniga waxay la tahay horta hal arrin oo muhiima xalku wuxuu ku jiraa runta in la qirto marka runta la qirto waa la daaweyn karaa arrinka madaxdii dhiibtay qalbi dhagax iyo waxba ku marmarsiyoon istanbul shaaxilka ka tegi madaxweynaha iyo prime ministerka ummadda hor yimaadiin haw sheegaan duruufihii iyo dantii ka maarmi weysay shacabku ama ha cafiyo markaas ama yo cafinin waa su-aal kale u taala haddii laakiin la isku dayo in nala ka caqli badiyo oo la iska dhiga sida dad la sirayo nala yidhaahdo wallahi ma ogeyn madaxdu hadda madaxda annaga inay dalkaa ilaalisaan u dooranay dalkii ma ilaalinayaan meesha ka tagaan ayadana waxaa soo haray saaxiibka amiin jeso maanta baarlamaanka qaraar uu gaaray ol ixtiraam dee saaxiibka amiin jeso waa nin codkarahoo xoogaa codkarnimadii meeshaas la gashay maadaama dee uu rabo inuu mogtahay laakiin caawo kale waa xoogaa jeso sidii maaha caawo waxaan rabnaa wix maanta baarlamaanka ku heshiiyey argagixisa ma ahayn nimankaas amaan jeclaan ama yaana jeclaan taas waa kiis kale qalbi dhagaxana argagixisa ma ahayn in la dhiibana gardarre eed ay uu yaraan caawa intaasa ku seexda ninkii intaas adiga xataa u ogolo xildhibaan jeso waa mahadsan yahay walaalkay waa fiican yahay waxaa muhiim ah danta waxay ku jirtaa taagtaada ogow ceeb ma aan taagteena ogaana dowladnimadeena aan ilaashano shacabka soomaaliyeed iyo ama madax ha ahaado ama shacab ha ahaadee dowladnimadu waa shay muhiima oo in la ilaashado u baahan dowladnimadeena waxyaabaha daamijka u geynayo iyo heerka aan maanta aan taaganayo iyo meesha aan kasoo kabanayno mar walba xasuus aan u yeelano qof kasta oo mas-uula rabitaan waa yeelan karaa laakiin rabitaankiisiyay noqonin mid dowladnimadii iyo muxuu ahay iyo amnigii iyo wax kasta muxuu ahay ay iska dhex galaan aan kala saarno ninkii nala ka codsada waa geenaynaa waa mahadsantiin aad baan idinkugu mahad celinaya labadiinuba waddankaa lagu kala aad tago iyo aad baan ugu mahad celinaya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa iyo xildhibaan daahir amiin jesow oo labadaba ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo caawa nagala qaybgelaya barnaamijka dabagalka wararka ee telefishinka universal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay qodobada kale inoo harsanna waxaa ka mid ah dhinaca kale xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta waxay su-aalo weydiiyeen wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha soomaaliya dhinacyada ay wax ka weydiiyeen waxaa ka mid ahaa arinta la xiriirta qorshaha qaranka kadib markii uu kulanka soo ilaaday ayaan weydiinay wasiirka bal inuu faahfaahin ka bixiyo waxyaabaha maanta golaha aqalka sare ee soomaaliya ay weydiiyeen iyo weliba waxyaabihii uu uga jawaabay bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay saad u jeedo waxaan hadda noo dhammaaday kulan aan lahayn aqalka sare warbixin ee wasaaraddu ay u soo gudbinaysay golaha aqalka sare dhammaantiis markaasna warbixinta ka soo jeedinay waxqabadka wasaaradda qorshaha horumarinta qaranka mashaariicda waddanka ka socota iyo waxyaalo fara badan oo wasaaraddu qabato su-aalo fara badan ayaa nala weydiiyey su-aalihiina si ugu habboonaa uga jawaabnay waxaan rajeynaa haddii alla meena xiriirkan sii socdo annaga ee golaha aqalka sare aan xiriir joogtaa yeelano aan
dhaqdhaqaaqa wasaaradda iyo guud ahaan waddanka waxa ka socda wasaaradda ka wado ku wargelino iyaguna saasoo kale nagu soo booqdaan annaguna ku soo booqanno wada shaqaynta inaan sii xoojinaya u nimi waana arrin muhiim ah runtii waxaan ka wada hadal xildhibaanadan aqalka sare waxay matalaan dowlad goboleedyada su-aalihiin la weydiiyo waxaa ka mid ahaa iskaashiga aad la leedihiin dowlad goboleedyada markaa si kooban intuu gaarsiisan yahay isagana aad iyo aad u fiican yahay iskaashiga mar walba waa lasii hagaajin karaa lasii xoojin karaa wasaaradda qorsheynta gaar ahaan xiriirka alada wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada aad u fiican yahay waxaanu samaysanay golaha horumarinta qaranka halkaas aan ku kulanno oo kaga hadalno mashaariicda horumarinta waddanka aad u fiican waana sii xoojiyeynaa oo waana tagnaa gobollada waana tegi doonaa dhowaan haddii alla idmo iyaguna way noo yimaadaan iskaashigana waa xoojinaynaa wada qabsigana waa xoojinaynaa danta guud sida looga shaqeynana waa adkeynaynaa arrimahaasoo dhan ayaan ka wada shaqeynaa waxyaabihii looga hadlay su-aalihiin la weydiiyo ka jawaabteen waxaa ka mid ahaa in mashaariicda dhinaca mashaariicda UN ay ahaan lahayd arrimaha ilaa hadda maxaa ka qarsoon mashaariicda waa kala duwan mashaariicdu mashaariic waxaa jirta hadda socota kuwa soo socda kuwa dhammaaday marka inaan bal la wadaagno xogaha sheegaya mashaariicda ka socota dowlad goboleedyada waddanka kuwa hadda socda iyo kuwa soo socda qorsheynta mashaariicda sida loo qorsheynayo cidda fulinaysa meelaha laga fulinayo misaa ku baxaysa waxaasoo dhan marka arrimahaas la wadaagnay waana soo dhaweeyeen waana si joogto aan u wargelina haddii alla idin mashaariicda qaar inay hay-ado NGO-yaha soo maraan maxaa ka jira waa sax weeye mashaariic badan ay NGO-yaasha waddanka fuliyaan dhib male in NGO mashruuc fuliso laakiin mashruucaas waa inuu noqdaa mashruuc ay baahidiisu tahay mid ay dadka deegaanka laga fulinayo soo caddeeyeen soo sheegteen in iyagu dadkaasi dadka deegaanka ay yihiin waxay ka warqabaan in mashaariicdan ay mashaariic wax badan ka bedelaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan oo maanta hortagay xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya daawadayaal haddaynu eegno ugu dambeynna magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya waxaa lagu wadaa inuu ka qabsoomo shir u dhexeeya madaxda maamulada Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca IGAD ayaa garwadeenka waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadli doonana waxaa ka mid ah sidii dhinacyadaasi isugu imaan lahaayeen haddaba arrintaas markay soo baxday waxaan wax ka weydiinay senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo hore u soo noqday madaxweynihii Galmudug ugu horreyn waxaan weydiiyey bal shirkaas iyo waxyaabaha ka soo bixi karay waxa ay tahay in ay labada dhinacba ka wada hadlaan waayo waa dhowaa waa mahadsan tahay horta shirkaasi waxaan u rajaynaynaa inay ka soo baxdo waxa uun la raadinaya waa isafgarad iyo galmudug oo midnimadeedii iyo ka qaybgalkeedii in loo dhammaado waa u rajaynayaa oo haddee dabcan laakiin waxaa moodaa soomaalidu waxay tidhaahdaa lugta hore lugta dambe haddii lugta hore dhaafto waa jabtaa haddii aan dawladdii federaalka ahayd arrintii ka mid ahayn ama aysan iyagu abaabulin hadda waxa weeye marka galmudug xubnaha dawladda federaalka bay ka mid tahay xubin dawladda federaalka mise waa yani waa wax oo ka madax bannaan tahay yani waxa weeye qorshuhu in nabad la qabto waa fiican tahay waa soo dhawaynaynaa muddaana la raadinayay laakiin waxaad moodaysaa mar haddaan dawladdii dhexe ee federaalku aysan ka dhex muuqan yacni waxaad moodaysaa fardo la isku garab eryahayo marka waxaan ku talin lahaa heshiis ha gaareen ha la is afgarto laakiin arrintaasi inay ku dhammaato dawladda federaalka goobjooggeeda iyo wadajirkeeda iyo taladeeda inay wax ku yeelato aad iyo aad buu umahadsan yahay waxa uu ahaa xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug guud ahaana daawadayaal saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa caawa barnaamijkii dabagalka wararka anigoo Cabdinaasir Maxamed ayaa soo jeedinayay dhinaca farsamada waxa uu ahaa Khaalid Maki Xaaji iyo waliba Cabdiraxmaan Jaamac Salaad intaan dib u kulmi doono guud ahaantiin waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh